habeenkii aqalgalka gabadhu si dhuumasho ah ayay qolka uga baxday xilli ninku hurday. Ninku wuxuu is yidhi malaha waxay la qabsatay inay keligeed seexato, sidaas darteed arrintaas muhiimad ma siinin. hase yeeshee maalintaas kaaliyihiisa ayaa u keenay gal dukumiintiyo ah oo ku saabsan taariikhda gabadha guurka ka hor. dukumiintiyadu waxay faahfaahinayeen diiwaanno xun oo ay lahayd iyo xiriiro hore oo ay rag kale la soo samaysay markii hore. ninku ma aaminsanayn in gabadhu waxaa samayn karto, laakiin habeenkaas wuxuu taleefan ka helay saldhigga booliiska oo looga sheegay inuu halkaas ka soo kaxeeyo. markii uu ninku tegay saldhigga wuxuu ogaaday in gabadha laga soo qabtay goob lagu caweeyo iyadoo la joogta wiilal dhallinyaro ah. inkasta oo ay sidaas dhacday, ninku haba yaraatee ma xanaaqin. waraaqihii ayuu saxiixay, kadibna gabadhii ayuu ka haystay. isla markii ay dibadda u soo baxeen waxay maqleen laba nin oo jidka taagan oo si xun uga hadlaya gabadha. ninku wuu soo dhaqaaqay oo qabtay kii hadlay, waxaana xigay in gabadhu ay feedh wejiga kaga dhufatay mid ka mid ah raggii. ninkii waddada taagnaa wuxuu weli isku dayay inuu dhib abuuro, isagoo ku eedeeyey gabadha inay leedahay dhaqan aad u liita. hadalkaas ayaa ninka aad uga caraysiiyey, wuxuuna kor u qaaday ninkii aflagaadada geystay, isagoo gabadha ku amray inay cashar fiican u dhigto. natiijadii 5 daqiiqo kama ay maqnayn saldhigga markii dib loo soo celiyey mar kale. booliiska ayaa sheegay in haddii ninka dhibanaha ah uu diido inuu heshiis gaaro, laga yaabo in gabadha xabsi loo diro. kadib ninku wuxuu ninkii dhibanaha ahaa u dhiibay warqad heshiis ah. markii hore wuu diiday inuu heshiiyo, laakiin ninku wuxuu u sheegay haddii uusan saxiixin inuu la hadli doono qareennada shirkaddiisa. ilbiriqsigiiba ninkii wuu ogolaaday inuu saxiixo. markii ay mar kale saldhigga ka soo baxeen, ninku wuxuu si tartiib ah jaakadiisa u saaray gabadha. waxaa soo baxday in ninku gabadhan jeclaaday aragtidii ugu horraysay 10 sano ka hor. qalbigiisa wuxuu ka ogaa in wax walba oo ay gabadhu samaynaysay ay ahaayeen keliya jilitaan ay ku diidanayd guurka.